kusoo dhawaada muuqaalkeena cusub ee aan maanta idinkugu talagalnay. Allah subxaanahu wa tacaala hana xifdiyo dhammaanteen, qof walba inaga mida muraadka iyo xaajada iyo danta uu leeyahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u sakhiro. suurad yar oo qadarkeeda aad iyo aad u weyn yahay, haddii aad akhrisid marka aad gurigaada galaysid insha allahu tacaala, allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kuu soo furayaa kulla abwaab alkhayr, albaab kastoo khayra, barako fara badanna rabbi subxaanahu wa tacaala wuu kugu soo furayaa ilaa uu maalka sida webi fatahaya oo kale uu kugu soo fataxo. subxaana allah. bismi illaahi araxmaan araxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. ascad allahu sabaaxakum wamasaa'akum walaylatakum wanahaaratakum bilkhayr. ilaahay subxaanahu wa tacaala idin ciseeyo. muuqaalkan quruxda badan ayaan idin wadaa. allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad dhan iskale inaga dhigay dad muslimiina oo haysta acdam kitaab fi lkown, kitaabka ugu weyn ilaahay subxaana wa tacaala koonkan u soo dejiyey, wa acdamu sirin min asraar wa mucjizaat hada alkown. mucjizada iyo sirta ugu weyn ee koonkanna aan gacanta ku haysano, laakiin ay u baahan tahay oo keliya qofka muslimka ah inuu fahmo kana dhex baxsado. marka ugu horeysa walaal like saar muuqaalka oo la wadaag saaxiibo fara badan si ay uga faa'iidaystaan. marka xigtana aan ku salino xabiibkeena nabigeena sala allahu calayhi wasalam. allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed kama sallayta calaa إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. سورة كمذا سورة يريرك أو كدوغن يحي كنوستا إيو كيدتك أرزاقدا ربي سبحانه وتعالى كونك نغتلقلي حسن قطي كلامك الله دمانتيس كل حرف وكل آية وكل كلمة من كتاب الله فيها كنز وفيها بركة. آيات والباء قرآنك كمذا، كلمات كستو قرآنك كريمك كمذا، إي سورة والباء قرآنك كريمك كمذا، وحيلاذا هي خاصية إي أسرار أن لسوكو بكرين. حديات سورة أخرستو مركئات قرقاك سوق ليسيد إن شاء الله، وحنقنيسا إن الله سبحانه وتعالى وكوسفره كل الباب، يعني الباب كستو خير بدن. الله سبحانه وتعالى رزقي أيوكو قد قدونا وآذن قرنين حلقة أو كاقيمين، halkee ayuu arsaaqdan, halkee maalkan kaaga yimid, adigu xataa ma garan doontid. allah subxaana wa tacaala wuxuu ku waasicinayaa nolol maalmeedkaaga. suurad asraarteeda iyo barakaadkii khayrka ku jira ay ka sarayso caqliyadda qofka bini'aadamka, taaqadeeda ruuxiga ah ee qofka mu'minka ah waxyaabo cajaa'ib ah korkiisa markaasi gurigiisa lagu arkayana ay aad u sarayso. suuradan waa aasaaska 7 samadood iyo araadiina 7 dhulood. aayaadkeeda iyo kalimaadkeeda sida ay isugu dhisan yihiin, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qariyey biismihi alacdam, magaciisa weyn ee cajiibka ah ee qofkii ogaadaa ama helaa uu ku furan karo kulla kunuusi alard, kanaa'ista adduunyada oo dhan. suurad uu ku jiro magac uu ka khayr badan yahay magacaasi alfa asmaa, kun boqolaal magacyo uu ka fadli badan yahay. magacyadaas oo lagu soo dejiyey kutub samaawiya, kutubada samada ka soo degay ee allah koonkan soo dejiyey. saa darteeda qofka akhrinaya suuradan waa inuu suuradan barakaysan aad u weyneeya, aad u ixtiraama, aad ay qalbigiisa ugu weynaataa. qofkii hal mar akhriya allah subxaanahu wa tacaala wuu barakaynayaa, qofkii 2 mar akhriya ilaahay wuu barakaynayaa, ehelkiisana wuu barakeynaya rabbi subxaanahu wa tacaala. qofkii 3 mar akhriyana allah wuu barakeynayaa, ehelkiisana wuu barakeynayaa, jiiraankiisa iyo dariskiisana allah wuu barakeynayaa caza wajal. suuradan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku iftiiminayaa aragtida iyo qalbiga qofka mu'minka ee akhrinaya. suuradan qofka addoonka wuxuu ku garanaya rabbigiisa aqoonta iyo macrifadii xaqa ahayd. suuradan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaaga saaraya faqriga iyo caajiska. suuradan waxa uu alla kugu soo jeedayaa taajirnimo iyo maal. suuradan xurmadda iyo qiimaha alla agtiisa ay ka leedahay wuxuu ilaahay kaaga riixaya oo kaaga qaadaya cudurrada imtixaanka ah ee balaayada bini'aadamka ilaahay uu ku saliday, allah uu ka qaadaya caza wajal. xaqa suuradan ee cadiimka ah, suuradan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu dhaafaya dembiyada waaweyn ee ay galeen addoommada allah subxaanahu wa tacaala ee dambaabay. qofkii akhriya salaada subax kadib suuradan, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka xifdinayaa in uu qofkaasi maalintaasi dembi gelin. inaadan dembi gelin ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku dadaalaya maalinta. xitaa shaydaanka si kasta oo uu kugu dadaalo maalinta uu isku dayo inuu dembi ku geliyo ama kugu riixo, maalintaasi ma geli doonteed insha allah. suuradan fadligeeda iyo karaamada allah agtiisa ay ka leedahay awgiisa, qofka addoonka ah ee akhriya si yaqiin ah ee aaminsanaana u akhriya wuxuu gaari doonaa maraatib aliimaan, iimaanka darajaadkiisa meelaha ugu saraysa iyo yaqiinta rabbi subxaanahu wa tacaala uu addoonkaasi u qabo. waxa uu gaari doonaa addoonkan mu'minka ah ee aaminsan yaqiinta u qaba rabbi subxaanahu wa tacaala marxaladda ah
kun fayakuun oo ah inuu rabbi wax weydiisto oo sakan aysan ku qaadanin ilaahay sakan uuga ajiibo ducadiisa iyo baryadiisa. qofkii akhriya suuradan Allah ayaa 1000 jeer iyo ka badan kusoo eegaya kusoo fiirinaya markaad aayadda koowaad akhriso. Allah subxaanahu wa ta'ala adoonkiisa yaqiinta suuradan uu akhrinaya waxa uu ka ajeebi doonaa insha Allah 1000 jeer haddii aad akhriso aayadda labaad. Allah wuxuu siinayaa 1000 su'aalood oo weydiistay Rabbi subxaanahu wa ta'ala markaad akhriso aayadda saddexaad. Allah wuxuu ku gudayaa xaajadaada iyo dantaada markaad akhrisato aayadda afraad aad gaartid 1000 xaajadood idinka Allah. suuradan waa nuurka quraanka kariimka. suuradan waxay leedahay khaasiyad iyo markaasi wax qabadyo aad iyo aad cajiib ah oo aad la yaabi doontid mucjisadeeda. awoodda suuradan aad iyo aad waxay ka sareysaa wax walba oo aad adiga filan kartid haddii aad si yaqiina oo aaminsanaana aad u akhriso. waxay leedahay awood in sixirka iyo saaxiriinta ay ka buriso qofka la sixray, caafimaad daa'im ah oo joogto ah inuu Rabbi subxaanahu wa ta'ala kugu siiyo, inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaajada kugu gudo, inuu Allah subxaanahu wa ta'ala kuu fududeeyo culayska kaaga qaado fudeedna uu kugu siiyo, inuu Allah arsaaq kugu siiyo, inuu Allah haybad iyo markaasi qabuul uu kugu siiyo dadka aysan waxba kaa diidin, inuu Allah kugu kashfiyo waxyaabo markaasi aysan dadka kale arkaynin, inuu riyada Allah kugu tuso waxyaabaha cajaa'ibta cadowgaaga saaxiibkaaga iyo waxyaabo kala duwan oo noloshaada khayr u ah, inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuu furo oo riyo ku aragto. yacni awoodda Allah subxaanahu wa ta'ala koonkan Ilaahay uu ku dhisay inaad asraar fara badan Ilaahay xaggiisa uu ku siiyo oo aad ogaatid bil yaqiin haddaad akhrisato oo aad aaminsan tahay. dabcan tasarruf kasta iyo dhaqan walba iyo tilmaam walba waxay leedahay raqam iyo tiro uu qofka akhrinayo kaasi oo ay la wadaagto suwar kale oo quraanka kariimka ku jira. suuradan waxay ka khayr badan tahay wax walba oo laga sheegay, wax walba oo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka sheegay. Allahumma salli wa sallim wa zid wa baarik calayhi. haddii qofka akhristo suuradan inay u dhiganto 3 meelood meel quraanka kariimka, waana suurada qul huwa Allahu ahad oo magaceeda caanka uu yahay suuratul ikhlaas. cajaa'ibteeda suuradan wax tirin kara oo koobi kara Rabbi subxaanahu wa ta'ala mooye ma jiro. qofkii raba inuu Allah arsaaqda u waasiciyo oo Rabbi subxaanahu wa ta'ala uu sidii daadkii maalka uu kugu soo shubo barako, arsaaq gurigaaga, ehelkaaga iyo dhammaan jiiraankaaga inay nolol wanaagsan oo barwaaqo badan ku noolaadaan, inuu kuu furo Rabbi subxaanahu wa ta'ala albaabada fudeedka iyo Rabbi subxaanahu wa ta'ala inuu kuu sahlo umuurtaada oo dhan, inuu Allah ku xifdiyo adiga, caruurtaada, ehelkaaga iyo inta aad jeceshahay ee jiiraankaada ku jiraan, kaana xifdiyo Rabbi subxaanahu wa ta'ala shar warba, inuu Allah subxaanahu wa ta'ala ku siiyo khayr aad u ballaaran. ha akhriyo qofka suuradda al-ikhlaas ama qul huwa Allahu ahad mar walba oo aad gurigaaga aad galaysid. qaabkan soo socdana u akhri walaashayda muslimada ahay. markaad gurigaaga galaysid waxaad dhahaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xitaa hadduusan qof guriga ku jirin. kadibna waxaad dhahaysaa اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. 3 jeer ayaad akhrinaysaa. kadibna waxaad akhrinaysaa suuratul ikhlaas ama qul huwa Allahu ahad hal mar ama 3 mar ayaad akhrinaysaa sida lagu sheegay axaadiista nabawiga ah ee shariifka ah. Allah ayaan ku dhaartay suuradan ama qaabkan haddaad u akhriso sir weyn ayaa ku jirta, daaqad iyo awood ruuxi ah oo Rabbi subxaanahu wa ta'ala wax badan kugu soo jalbinayana waa ay ku jirtaa insha Allah. inuu Rabbi subxaanahu wa ta'ala waasacnimo arsaaqeed ku siiyo, risqi aad u ballaaranna ku siiyo Allah caza wajal. shakina kuma jiro rasuulka eebe calayhi salaatu wasalaam asiga ayaana ah qofka amray in suuradan la akhristo. qof ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimid sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna qofkaasi ka sheegtay faqri iyo ciriiri nololeed ayuu rasuulka agtiisa uu uga sheegtay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku dhahay haddii aad gasho gurigaaga waxaad salaantaa guriga haddii qof ku jiro iyo hadduusan qofna ku jirin, kadibna waxaad akhrisaa markaad salaanta kadib suuratul ikhlaas ama qul huwa Allahu ahad hal mar. riwaayadaha qaarna waxay dhahayaan 3 mar. qofkii ayaa sidaasi la faray sameeyey oo akhriyay meel walba noloshiisana caado uga dhigay. maal iyo arsaaq ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala qofkaasi ugu deeqay oo tiro badan, isaga iyo ehelkiisana cajiskii iyo risqi la'aantii iyo faqrigii way ka baxeen oo noloshoodii way isbedeshay. rasuulka eebe sallallahu calayhi wasallam run ayuu sheegay. xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku sheegay
qofka haddii uu galayo gurigiisa ha u akhristo ama uu akhriyo suuratul ikhlaas waxaa ka tegaya oo gurigaasi ka istaagaya wax faqri ah. shakina kuma jiro walaalkayga walaashayda muslimadda ahay, maanta aan tijaabino. adiga tijaabi oo fiiri, waxaadna arki doontaa cajaa'ibta iyo mucjisada. waxaadna dareemi doontaa oodna fariimaha iyo sheerta iyo laygta aad u dhiibi doontaa muuqaalka saaxiibo iyo dad kalena aad la wadaagi doontaa mucjisada iyo isbeddelka noloshaada ay ku keento insha allah. shakina kuma jiro inay suuradan awood ruuxiya leedahay, awood mucjisa leedahay oo kugu soo jiidaysa barako, khayr iyo risqi oo dhammaantiis gurigaagana uu noqon doono guri markaasi isbeddel fara badan aad ka dareenteed. awoodda allah subxaanahu watacaala wax walba ay ku dhacayaan iyo sirka allah subxaanahu watacaala addoommadiisa ugu qariyey suuradan cajiibka ah ee suuratul ikhlaas. laga yaabaa inaan dhammaanteen raadinayno xal aan markaasi ku goobayno meel aan mushkiladda iyo ciriiriga aan isaga baabi'ino. dhammaanteennana agteena waxaa yeelo furihii aan markaasi ku furan lahayn mafaatiixu risq. qof kastana agtiisu yaalaa, qof kastana gurigiisa muslim ah miftaa ama musxaf lagama weynayo, ama qof kasta kor ayuu ka yaqaanaa, laakiin ma fahamsana sirtaas cadiimka ah ee jaabkiisa ku jirta. lagana yaaba inaad meel kale ka raadinaysid arsaaq, fatxi, taysiir wa tashiil. kitaabka allah, musxafka qur-aanka kariimka gurigeena wuu yaalaa. sir min asraari ilkown oo dhanna way ka buuxdaa, laakiin sidee uga faa'iidaysanaynaa? sideen u akhrisanaynaa? sideen markaasi ugala soo baxaynaa oo rabbi subxaanahu watacaala towfiiqdiisa iyo awooddiisa iyo qudradiisa uga faa'iidaysanaynaa? keliya waxaa lagaa rabaa qalbigaaga inuu run uu ka sheego waxa aad samaynaysid, qalbigaagana uu aaminsan yahay in kalaamka allah subxaanahu watacaala iyo sunnada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ku soo arooray ay xaq yihiin. kadib markii aad intaasi samaysid, waxa kuu soo socda aad ayay u wanaagsan yihiin, wayna ka wanaagsan yihiin wax walba oo adduunyo aad ku raadin lahayd xaaraam ama shubahaad. ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqda allahna waafajiyo, arsaaq waasaca allahna siiyo, ilaahay maal xalaala, risqi xalaala, tubta toosan ee jannada lagu gelayo allah nagu wada arsuqo. ilaa hunaa intahat xalaqatuna alyowm. maanta halkaas ayay ku dhammaatay muuqaalkeenna. waxaan rajaynayaa qof walba inuu ka faa'iidaystay. haddii aad ka faa'iidaysato, walaalkaaga kale u faa'iiday oo la wadaag. dumtum tayibiin, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.